runtii sharaf weyn ayay maanta inoo tahay inaan idin hor keenno sharciga jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed iyo dhismaha hay'adda qaran ee jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed. Mudane gudoomiye ku-xigeenno iyo senatarada sharafta leh, runtii sharcigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan, waxaana uu soo maray oo kale wada tashiyo fara badan iyadoo laga ansixiyay golaha wasiirada 18 bishii Abriil 2019. kadibna waxaa loo gudbiyay golaha shacabka oo isaguna cod aqlabiyad ah ku ansixiyay 15 bishii Janaayo 2020. mudane gudoomiye ku-xigeenno, senatarada sharafta leh, sharcigani wuxuu ka kooban yahay maanta idin hor yaallo 7 qaybood iyo 45 qodob. ujeedooyinka ugu waaweyn ee sharcigan waxaa weeye: 1. inuu hormariyo siyaasadda jaangoynta iyo tayadhowrka ee qaranka Soomaaliyeed iyo inuu daboolo baahida loo qabo xeerarka jaangoynta, cabirada, baarista iyo hubinta badeecadaha. 2. in laga habraaco xeer nidaaminta tayadhowrka ee lagu maamulo tayada badeecadaha iyo adeegyada kuwa soo gala dalka ama la dhoofiyo iyo kuwa gudaha dalka laga soo saaro ama laga isticmaalo. 3. inuu ilaaliyo badqabka qofka ama bulshada caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba. 4. in lagu dhiso hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed iyo inuu sugo kalsoonida isticmaalaha, isla markaana wuxuu abuurayaa kalsooni lagu qabo tayada badeecadaha dalka soo gala, midda la dhoofiyo, tacabka dalka laga soo saaro intaba. si loo gaaro ujeedooyinka aan halkan ku sheegay, wuxuu sharcigan uu dhisayaa hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed oo loo yaqaano Somali Bureau of Standards si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, taasoo mas'uul ka noqonaysa maamulka iyo nidaaminta tayadhowrka badeecadaha dalka soo gala, kuwa la dhoofiyo iyo kuwa gudaha dalka laga soo saaro ama laga isticmaalo intaba. mudane gudoomiye ku-xigeenno, senatarada sharafta leh, waxaa in muddo ah naga soo gaaraya ganacsatada dalkeenna cabashooyin fara badan oo ku aadan dhibaatooyinka ay kala kulmaan maqnaanshaha tayadhowrka badeecooyinka ay dibadda u dhoofiyaan, taasoo ay u maraan waddo dheer si loo aqbalo badeecadahooda, waxayna geeyaan waddamada dariska ah ama kuwo kale si ay u marsiiyaan habraac tayadhowrka ee waddamadaasi ay leeyihiin, maadaama waddankeenna uusan lahayn tayadhowr. waxayna halkaa ku waayaan hanti fara badan, waxaana runtii ay taasi ku tahay caqabad ku gudban ganacsigeenna. dhanka kale, mudane gudoomiye ku-xigeenno, mudanayaasha sharafta leh, waxaa jira cabashooyin fara badan oo naga soo gaaraya shacabkeenna oo ku aadan dhibaatooyinka ka dhasha qaar ka mid ah badeecooyinka waddanka la keeno iyo daawooyinka intaba, kuwaasoo ah kuwa dhacsan ama tayadoodu ay liidato, cunto xumaatay, agab dhismo oo tayadiisu liidato iyo badeeco been abuura intaba. mudane gudoomiye ku-xigeenno iyo senatarada sharafta leh, runtii waxaa nagu dhaliyey inaan diyaarinno sharcigan. waxyaabaha nagu dhaliya waxaa ka mid ah: 1. baahida loo qabo in la helo hay'ad si gaara ugu xil saaran ilaalinta tayadhowrka iyo badqabka badeecadaha
dalka soo gala kuwa ka baxa iyo kuwa dalka laga isticmaala intaba. marka labaad ganacsatada wax dhoofisa oo iyaguna runtii ka cabanaya maqnaanshaha shahaadada tayada. midda saddexaad caqabado nooga yimaada dhinaca heshiisyada ganacsi ee runtii aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay ee aan rabno in ganacsatada inaan la ganacsanno. baahida kale ee loo qabo xakamaynta daawooyinka iyo cuntooyinka la keeno dalka oo soo mara runtii baarid la-aan. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha nagu dhaliyay baahida loo qabo dhiirigelinta waxdhoofiska iyo kor u kaca dhaqaalaha dalka. mudane guddoomiye ku-xigeenno senatarada sharafta leh, runtii sharcigan ansixintiisa iyo dhismaha sharcigan uu xusaayo waxay xal waara u noqonayaan dhibaatooyinka aan soo sheegnay, waxayna horumar ku sameynayaan dhammaan howlaha tayadhowrka waddanka. mudane guddoomiye ku-xigeenno senatarada sharafta leh, maqnaanshaha sharcigani wuxuu gelinayaa waddankeenna halis caafimaad iyo mid dhaqaale intaba. adduunkana kama jiro waddan aan kantaroolin waxyaabaha soo gala iyo kuwa ka baxa iyo kuwa dalka gudihiisa laga soo saaray intaba. mudane guddoomiye ku-xigeenno, xildhibaanada sharafta leh, waxaan dhammaanteen waajib dastuuri ah naga saaran yahay ilaalinta badqabka muwaadinka Soomaaliyeed caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba. sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad idinkoo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah aad sharcigan noo ansixisaan si dhaqangalkiisa aan ugu diyaar garowno. wabilaahi towfiiq.